بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaynu ka hadli doonaa maanta oo dariskeena ama mawduucaynu ku soo qaadan doonaa xuduuda ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab. qisaasta nolol ayaa idinku sugan dadka caqliga wanaagsan leh. siday qisaastu ugu sugantahay qofku qof markuu dilo ee loo dilo dee labadaba way alaysanayaan. horta qisaas waxaa la yidhaahaa in qofka qaatilka ah ama wax sameeyey wixii uu sameeyey isagana lagu sameeyo. أن يفعل بالجاني ما فعل غيره وهو كي كسميين سجن القسمية قصاص مغلسة إلهي وقلت المامن سبحانه وتعالى إن النورين وسبحانه حكمة كتير تاوحوية فإن الشخص إذا علم أنه سيقتل إن قتل غيره إن كفى بقتل أخيه مركو شخص وقاضى ما هو حقيق صده walaalkiis dilo in isagana la dilayo wuxuu ka joogsanayaa dilkii walaalkii ama dilkii qofka islaamka ayuu ka joogsanayaa. waxa baaqi noqonaysa noloshiisii iyo kii uu doonayay inuu diloba noloshiisii. sidaa darteed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayna abuurtay, isagaa sidaynu ku noolaynayno iyo masaalixdeena og, isagaa og subxaanahu wa tacaala sidaynu ku liibaanayna akhriya adduunyadaba. wuxuu inoo tilmaamay subxaanahu wa tacaala manhajka uu inoo sheexay waxa weeyaan in qofku kol hadduu baaliqa caaqila yahay uu dembiga intaa leeg u badheedho in isagana loo dilo. sidaas oo kale xubnaha oo kalena caynka ayaa la samaynaya. كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن والجروح قصاص. سن بالسن والجروح قصاص. مركا ما دام حبنتي أي كسورو بيسو مماثلة أي كسورو بيسو إنتين لا قفكا لبجيستا لا قصاص لا قصاصات ولا سمينة. إلى جيبا إلى جيلو سوريا. دكتي بعدكتي لو شريا. إشي بإشي الله رجنايا نلاش مجتمع أما إسلامك أما مارتي دقموناك يا سلا كسرن واحد شوكسن يدلك يا يرانا دلكو شركك كدب دنبي أدونك كدعواك أول. إلهي سبحانه وتعالى وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعيد كدرنا انت يا آيات فربضان ولم يضايا كساروري. إلهي سبحانه وتعالى وقف وقف مؤمن الدلاء سواه كسايا جسيه سوى جهنم وجهنم أيو كواريا جهنم قليا والو كواريا أبو إلهي وقذب الله عليه عراء لروي كل عظي وأعد له حتياري عذابا عظيما عذاب درر يتياري. marka waa dambi la sameeyo ka ugu weyn bacda al-ishraak shirkiga kadib. waa rasuulkuna tilmaamay alayhi salaatu wasalaam awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu ad-dima. xaqa bini aadamka marka la eego qofka wax la xisaabiyo waxa uu horeynaya dhiigii ayaa horeynaya. maqtuulkii la dilay wuxuu imaanayaa isagoo qaatilka haysto leh muxuu igu dilay oo maanta halka ayuu dabeeto وقبسنا يا وكقانب يا وكلي. وحلو باهي ومسلمين تلوجا باهي هاي قف مر وقف إسلام الدلو إن أنقرب لصيمين. وحمجتمع اللوجا باهي هاي إسلام كا قف قاتل كائنان لوجا جارين. وحلو باهي يدم بقولين يسقون كوكبنا الله. سيدا درت قف مقتول قف وارث كأي مقتول كان ماركته أهلية iyagana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu jideeyay de waxa loo ogoliyay go'aan baa loo gudbiyay. waman qutila madluuman faqad jacalna liwaliyi suldaana falaa yusrif fi lqatl. qofka haddii laga dilo qofka haddii la dilo waman qutila madluuman qofkii waa la dilo dulmi baa loo dilay. faqad jacalna waxaanu siinay liwaliyihi suldaanan go'aan ayaanu siinay wiilahayna. go'aanka uu leeyahay waxa weeye inuu qisaasto ayuu leeyahay oo banaan waaridkii ka maqtuulka dulmiga lagu diray dhaxlaayay ehliyadiisa inuu diyo ku cafiyaano way u banaan tahay
inuu qisaasta iyo diyadaba ka cafiyaana iyadana way banaantay go-aanka isaga ayahay falaa yusrif fi lqatli buu ilaahay yidhi subxaanahu watacaala si aanu mujtamacu u fasahaadin oonu u xumaanin xadgudub yuu ku samaynin dilka subxaanahu watacaala wuxuu ihi waaridku weliga waxaa laga hadlayaa waaridka go-aanka maadaama uu leeyahay falaa yusrif fi lqatli dilkii uu ku xadgudbi xadgudubku wuxuu noqonayaa qofkii wax dilay qof aan hayn oo idha waan dilaya oo uu dilo waa xadgudub waxaa kaloo xadguduba inta qof la dilo inuu waaridkiisa yidhaa laba ayaanu dilaya xadgudubyada caynkaasa ayaa la diidaya shareecada islaamku waxay qabtaa qisaasta lafteeda in la dhexlaayo dadka maalkiisa dhexlaya ayaa qisaastana dhexlayo iyagaa wada leh go-aanka u dambeeya iyaga ayaa leh anoo afka culimada ku hadlaya jamhuuriyadda somaliland si aanu isku wada waafaqsanahay culimada ahlu sunnaha oo dhami waxay isku waafaqsan yihiin in qisaasta sideeda loo fuliyo in ciddii maqtuulku ka maqnaayo dulmiga lagu sameeyey go-aanka iyaga la weydiiyo inaan ciddii dembiga intaa leeg samaysa aan garab la siinin hadduu qaatilku garab helo oo la yidhaha cidi dili mayso oo la yidhaha halkaasaa lagu xanaanaynaya lagu caawinaya oo la yidhaaho dumarka ayaa halkaa loogu geynaya xikmaddii dilka ilaahay subxaanahu watacaala u jidaya ayaa meesha ka baxaysa ma aha qof aan iimaan lahayn oo aan qiimo lahayn in qiimo loo yeelo inaynu diinteena islaamka raacno ayaa loo baahan yahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi innii taraktu calaa xajati lbayda waxaan idinka tegay jidcad ayaan idinka tegay oo habeenkeeda iyo maalinta isku mida oo haddii aad raacdaan aad nabadgelaysaan waa kitaabka ilaah iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofku ficilada waxaa jira ficilo markuu samaynayo uu bilaa iimaan ba yahay dabeed adigu inaad garabka saarto oo aad qariso oo tidhaaho kan wax dilay baanu isxignay ma banaana sidaas oo kale xukuumaddu inay garabka saarto iyo hay-adu iyaduna ma banaana rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa yasni saani xiina yasni wahuwa muumin qofka zaanigii markuu sinada samaynayo iimaan ma leh walaa yasriqu saariqu xiina yasriq wahuwa muumin ka tuugii markuu waxadiyo iimaan ma laha walaa yaqtulu wahuwa muumin qofku isagoo muumina falka intaa leegay dilkaa ma samaynayo markaa jariimad weyn ayuu galay waxaa loo baahan yahay dabeed ciribteeda inuu dhadhamiyo ayaa loo baahan yahay waxaa kaloo rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam ijtanibuu sabca almuubiqaat toddobada muhlikaadka ee dadka halaaga ee naarta geliya iska ilaaliya al-ishraaku billah waalqatlu bikayri ilxaq waxaa ka mid a gaalnimadii inuu qofku ilaahay ka gaaloobo uu diinta islaamka ka baxo isku garan waayo waa dembi la sameeyo ka ugu xun weeye naarta ayaa lagu waariyaa maaragtay uu qofku naartuu ku waariyaa wixii maaragtay uu sameeye wanaaguu sameeyena waa halbacaad xabaar manfuura bay noqonaysa dembiga labaad ee shirkiga xitaa waxa weeye qofka inaad xaqdarro ku disho hadduu qofku xaqdarro uu wax ku dilo waa dembiga gaalnimada xigee ku labaa uu yahay anoo afka culimada ku hadlaya waa in dilka sidiisa loo fuliyo waa in ilaahay lagaga haybaystaa lagaga baqdo waa in maaragtay manhajka ilaahay isagaa dadka abuurtay oo og noloshooda iyo masaalixdooda awaamirta ilaahay la qaato waxaanu xukuumadda iyo mujtamaca dhammaan aanu u soo jeedinaynaa in xubinkaa qisaasta shareecada sideeda loo qaato oo dilkii ayaa farabatay waxaa farabadiyey qisaastii baa yaraatay intiqaam qofkii waa inuu xumaantan uu sameeyey oo abaalkeedii waa inuu dhadhamiyo baa loo bahay intaasaan maanta kusoo gabagabayn lahaa dariska. assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.